waxaa xogtii ugu soo gaaraysaa halkaa iyo dadkii deganeyd tawfiiq ee dabac iyo agoon lahayd ee surre oo gurmad halkaa iyo xeraale iyo laandheer gurmad u ah badhacdu waxay ku maahmaahdaa hombabaro libaax bay soo sidaa baashaan hombabarada la yidhaahdo badda dolphin baa u taqaanaa gaalada u taqaanaa markay raxan-raxanta u socoto badhacdu waxay dhaheen libaax baa daba socda waxaan ka wadaa hadalkaas afarta gaari ay ka soo dhaqaaqday tawfiiq horseedayaan qoraatan ka weyn oo qabiileed boqolaal galdogob taalla boqolaal jariiban taalla boqolaal gaalkacyo taalla boqolaal saaxa taalla boqolaal reer siyaad xuseen iyo ceeldheere iyo wagardhac iyo aan dagaalba ku jirin inaad soo gelisaan bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu qunaa maanta waxaan ku dul istaagi doonaa qolaadna ka soo cusboonaatay laandheer oo u dhaxaysa xadka mareexaan iyo dir hal baan ka odhan doonaa sidoo kale ciidankii qaranka soomaaliya magaciisa watay ee lagu xasuuqay ceeldheerna hal baan ka odhan doonaa xasan ayax oo maydkii hal guuto ciidana u tuban tahay 61 shacab oo islaayay maydkooduna u yaallo oslo norway u duulay oo shir la yidhaahdo oslo forum la yidhaahdo aadayna hal baan ka odhan doonaa aan ku hormaro waxaan ku hormarayaa ciidanka qaranka magacooda sita ee maalin kasta birta laga aslayo ciidankaas argagixisada loo loogay dhalinyaradaas argagixisada loo loogay waa tacsiyeenayaa waxaan leeyahay ilaahay naxariista janna ha idin siiyo ilaahay naxariista janna ha idin siiyo waa idiin muuqataa ciidan saddexdii sarkaale xukuntay laba ka mida la bireeyey waa saraakiishii ciidankii maxaa ka haray hub waxay haysteen beebayaal tikniko diyaalka rasaas nooc kasta waxay gashay gacanta argagixisada ciidankani wuxuu ahaa ciidan dhul abgaal lagu waardiyeynayo ah weli ma aragteen dhul xawaadle al-shabaab soo weeraray oo beebayaal iyo ciidankii dowladda iyo tiknika iyo baro halamsanaya ma aragteen weli ma aragteen argagixiso soo weeraray meesha halkaas yaadiyaa la ku rooyahay galmudug iyo abargidir soo weeraray oo beebayaal iyo hubkii dowladda ay qanimaysan maya hubka dowladdu halkaa ma gaaraan hubka dowladdu waxay waardiyayaan keliya oo gacanta loo geliyaa abgaalka iyo deegaanadooda maalin kastana waxa la furanayo saraakiisha la furanayo la biraynayo waa abgaal hubka la qaadanayo wax laga qaadanayo waa abgaal madaxweynuhu wax allaale wax hub lahaa qaranka loo keenayo ama deeq lagu qaatay ama tugs lagu qaatay abgaal xeryahooda u geeya kuwaan kale abargidirta iyo xawaadlaha iyo koonfur galbeed iyo waxaas macawislayooda waardiyeys macawislayooda wax iskaga dhiciya haddana madaxweynuhu deegaankiisii maalin kasta waa la qabsanaya hubku rag buu u baahan yahay sooma hubku inta meel la dhigo miyuu waa iska dhaxaya waa maya la yaab waa xasan sheekh iyo ciidankiisa iyo reerkiisa nin askari ay muuqaal ka soo duubeen argagixisadii ninkaasi intaan adduunka fulaya arkayay inna lillahi wa inna ilayhi sideed khasnadood baa saa ugu teedsan wuxuu wataa qori kuuriyaana buu gacanta ku haya halkaa qoriga qalkiisa inta qabtay oo bidixda ku qabtay buu midigtana wuxuu ku miisaamayaa xawaaraha socodkiisa saas u ordaya wiil hal khasno kaa wata oo qoriga waxa baabaas la daba taagan dharraq oo muxuu jiraa 30 tilaabo u jira waa ciidamada xasan sheekh loo tababaray wey ciidamada labada bilood ee loo soo tababaro abgaalka tababarka abgaal baa la yihahdaa taas u sujeensanaya baba u yimaadeen ma is arkeen hubin bayaan wuxuu inay al-shabaab yihiin inay yihiin haddii alla ku roo yahay qolyo reer miyiga inay yihiin la hubin mayo dhagax laba cagood cabdibilaha ka dheereeya markaasaa maalin alla keen hubkii iyo rasaastii iyo waxaas loo qanimaysanay maxay laga dhaxlayaa markaas maxay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa cadiifadda iyo qabiilka iyo yaa qoriga ridi kara inaadan ninka u siinin ausay adeer noo hay ma hayn kara dee ma uu hayn karo xasan
waxaan leeyahay 10 ku noqon kolba 10 qaadan maysid tuug waxba kama qaata 10 dhalinyarada halkaa lagu xasuuqay ee halka guuta gaaraysa ee saraakiishoodii la laayay waa u tacsiinaya waxaan leeyahay ilaahay haydin xariisto tababar fiican inoo hoosiin qabiil baa qoriya laydinku dhiibay meel baa laydin fariisiyey fadhin weyde waa kaas saynta laydinku dhigay balaayaa saynta idinku dhigtay balaayadaa saynta idinku dhigtay ilaahay haydan ka furdaamiyo halkaas aan dhigayaa ciidankaas dayacaas waa baaba'ay wax badan kama harin maca waxaad dareemi karnaa ciidan 3 sarkaal xukuntay 2 ka mid a la dareeyay weligii intaan arkaynin adduunka fulinimada waa 10 nooc qofba asagoo baqay macnaha baqadir waxa la jira dib u gurash nin baa hadii la guuro yahay xeeladaysta laakiin warra waa xaalatul abgaal halka aad qori inta qalka la qabtay gacanta kalena socodka lagu miisaamayo 8 qasnood ku xiran tahay waa kaarta abgaal weli ma gaarin Soomaalida kale anoo kuma arag kaarta abgaal baa leeyahay halkaas ay ugu gudbay Cabduqaadir Boos ee gaarsiiyay kaarta abgaal Cabduqaadir Boos oo kaartada waagan waayahay qolaada aanu imaado mareexaan iyo dir nabad ma ku baaqaya ilaahay ka baqaan idin leeyahay madaxda kale celisa ma lihidin dowlad Soomaaliyeed ma jirto qolomo iyo adiyarka shuyuukh xaq idin sheegta ma lihidin oo idin tiraahda war ninkii nin walaalkiisa dila Soomaaliya dilo muslima dila naar buu galaya ma haysataa dhiigu waa xaraan sheekh in yiraahdo ma haysataa qolomadiyanu waxay ku mashquulsan yihiin sabiisha gabdhaha marka idin leeyahay sabiisha gabdhaha baad ogtiin qolomada dhan dhageysta maxaadrooyinka gabar isqaawisay naaskay banaysay naayaan ninka ilaahay baan kugu dhaashay hadda ninkan waa sheekh dhageyso sariirta ay ku umulayso sariirta ay ku umulayso iyadoo ku jiifta hadduu ninkeedu dhaho waan kuu baaray inay ka soo kacdo waa qolomadeena waa kuwa maalin la arkay maalin la saxan lagu soo dhaweynayay nin dhan oo sheekh oo waliba qabqariyo weyn oo qaan la yaqaan ka magac iska sheegi may oo dad soo istaagay leh weel yar iyo toobara baasaas loo soo dhaweynaya dadku dhageysanaya hada sheekhu dadka anu dantoodan kala hadlaa anu wadan soo hadlo gabar fitoyaad kama hadlo sabiishaad kama hadlo sheekhu waxa aan arko haday dhinaca wanaagan ka markan ka mara haddaan xumaanta ka markan waa ka mara bal anigu kumada dhexdeeda kulamo meesha sabiil iyo bahalkii wax iyaga anfacayaan kala hadlaa ma siyaasad ahaato ama aygan ama aysan hadda hal sheekh oo hadlay oo 61 qof ama reexaan iyo ku kala dhimatay yadir ku kala dhimatay sheekh hadlay maartay sumcadii la soo dhaafay hayde wax muxaarada oo yara maartay sheekh leh adaabad gasheen waa maartay arkimaysa markuu hadlo gabadha sadeesheeda gabadha hadii la ku rooyahay ninkeeda xaq kama dhax gabadha ninkeeda dama dhax gabadha timaha qaawisa war culumadii ba ilaahay dabada naagu soo aruuriyay sheekhaas anigu wuxuu ku dhaliilay inaan qabiilo isku diro waxa qabiilada waan isku diro qana waan nabadayna qaan sheekhu laakiin adigu bal sabiisha ka soo dhamo sabiisha gabdhaha ka soo dhamo bal dadka wax taraya u sheeg intaas aan leeyahay ka soo gudub waxaan leeyahay marka mareexaan iyo dirow hal midig hooy caawo dhaxal gala 61 baa isla keenay ama aad ii sheegaysaan maanta intadaad idin yimaado la heshiisiyo ma reexaan guura oo bari dega diray guura oo dega meesha la yiraahdo banaadir ama la idin dhahayaa waa maya walaalaatihiin iscafiya 61 waa dhimatay birisoo kale boqol baad dilaysaan walaalaatihiin meesha wada deganaysaan waa isguursanaysaan waa isdhalaysaan ehel baad tihiin idinkaa isugu dhow umada ay shuudaan baad intii dhimatay inta dhaawacaan wallahi jahannaba sababtoo ah ilaahay halka fi waa meesha gasiirada xidlada laan dheer meesha isku laayay waa halka wax dhex yaala ma garanaysaa wariyaal marka allihii ida abuurtay ilaahay qof kasta meesha ku keenay caabude caabudadeena kamid tahay inaa wanaag samayso ilaahay ka baqa oo dhiigga daadinayso hal kalena nimanka diriga gaarsiiyay hal kalena diriga gaarsiiyay dagaalka intaan ogahay ama anigu xoogaal baan ahay waxa xog iga soo gaaraysaa dirtii halka iyo tawfiiq deganayd ee dabac iyo aagoon nimanka anagu wada deganayn
inay soo duuleen oo gurmad soo aadeen halkan maalinta wax ku dagaalamay dirta nimankaas islaayeen waa niman la yiraahdo dalal diini baa oo deegaanka Laandheer degan heer diinigiyo kala wada dagaal ma gelin wagax dhac dagaal ma gelin eli dagaal ma gelin heer siyaad xuseen dagaal ma gelin nabad bay ku baaqayaan dhalinyaro dirta ka soo duulaan tagaysa ama ka soo gurmanaysa meesha la yiraahdo tawfiiqow joojiyo colaada haddiise aad timaadaan oo aad cadaabkaas ilaahay ka baqi weydaan oo aad dhiig bini aadan raadisaan khayr lagama cuno timirna ma agtaaliyo xalwad intii maanta dhacday oo kala dhacaysa sidaasoo tahayna markii halkaa laga soo duulaan tago ali dagaalka waa gelaya reer siyaad xuseen dagaalka waa gelaya wagardhac waa gelaysa hadday sii ballaaratana reer duciyahana ulaalka sawcur maxamedow ma halkaa waa isku furayn reerna waa calmaa cadaabka waa la wada aadaya markaas cadaabka waa ognahay soomaa dagaalku dagaal jahanamo lagu gelayahay oo dagaal usu khayr lahayn diray haddaad cadaabka noo go'aamisaa in la aado waa la wada aadaya anu tirana waa qana cadaabna waa qana labada wadana waa qana marka rag isxifaalaynayna rag markaa isqabanana rabbi ka baq iyo rag iska dhici soomaalida waxay tahay meel muuqda galaa nin raga ilaab garay colaadaasi marka horin uma baahna tolaaya uma baahna gurmad uma baahna dad walaalaa wada degan aan meelna kala aadayn la kala rarayn 500 hadday dhimato wada deganaanaya uma baahna gurmad iyo in laga soo gurmado tawfiiq haddiise tawfiiq laga soo gurmado taqriiban baa laga gurmanaya meesha la yiraahdo waxa laga gurmanayaa meesha gaalka ayaa laga gurmanaya saaxa laga gurmanaya galdago baa laga gurmanaya gurmadku waa tira badnaanaya ninkay ilaahay ku yareeyay baana ku yaraanaya walaalayaal nabadaan qaadan ilmada aan dhowrno ilaahay aan ka jidka jannada aan shaqaysano ilaahayow ilaahayow markhaantiga ilaahayow intii aad tiri wanaag hala faraw waa ay arkaynaya kuwa tolkay ah ee mareexaan iyo kuwan kale diraadba inay wax ku qaataan qalbigooduna qoyo intaasaan kaga gudbaya colaadaas colaad Soomaaliyeed maanta nama anfacayso kun sanaan ummadda ka dambeynaa Yurubiyaankan iyo dhalinyaradu ay fahmaysaaye kun iyo boqol markay taariikhda miilaadiga 1100 markay ahayd filimka laga jiray dhalinyarada abreedka way garanaysaa waa Viking filimka la yiraahdo ka soo bilaamaya nimankan ka soo bilaamaya meesha la yiraahdo Norway iyo Denmark iyo Scandinavia ka soo bilaamaya islaynaya qabiilada ee aan diinta haysaneen meel kasta ku duulay tabtiyo kaan maraynaa kun sano umada ka dambeeyay maanta 2024 Japan iyo China iyo 6G barnaamijka la yiraahdo baa loo tartamaya cid soo horsaari lahayd halka 61 qof Laandheer nooga dhimatay ayaan daro qol inta ku soo koobaya barnaamijkaas hadii la ku rooyahay dil iyo mareexaan isdaay ilaahay ka baqa hadii naar loo tartamayana qolo kasta qabiil kasta waa gatay intuu naarta ku aadi lahaa reer hebel hubay leeyihiin reer hebel tiknikay leeyihiin reer hebel suubay gatano maqash oo wadada naarta loo maro sababta waxaan hal sooynayaa bini aadan bay dilaysaa gaal dili mayso cadaan dili mayso Soomaali cadawga dili mayso waxay dishaan waa Soomaali waxa ka suu reer kasta haysta waxay dilaysaa wabaan marka reerahan daaroodkuna inta jahanaba lagu aado waa haystaan jahanaba inta lagu aado afarta dagaal ugu dhaafan taqaan afarta dagaal markay afarta ugu dhaafan taqaan wasu iyo shilke beekaan afarta qori waa afarta lagu dhaafto wallahi billahi tallahi baka dhigan ka dagaal socod afarta lagu dhaafto way afartaas waa yaalaan deegaanka soo daarood marka diray awowayaan xagga iyo nololeehi aakhirna nololeehi dagaalkan tolka iyo ehelka wada shay damiya intaas aan leeyahay waaya qodobkayga saddexaad aan ku soo koobay barnaamij waxa weeye hada sheekh
shirka uu soo aaday isagoo waxaa soo meeydo ciidankii iyo shacabkii wadaadsan yihiin waxa la yiraahdaa Oslo forum baa la yiraahdaa waa shir yaroo biidhaayo agaasimayaal iyo madaxda rabta ee madaxweynaha Norway ee la kulantay waxyaalahaas ka yimaado agaasimayaal haddii la ku rooyahay wasiir arrimo dibadeed haddii la ku rooyahay ra'iisul wasaarayaal bas ka yimaado xasan in iyo yaab noqotay annaga laba madaxweynaha meesha ka tagay